حنين الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهضله إنه وافجيه كل كان قيمها بضن. أنت كذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلهي سبحانه وتعالى يدا وحكوت ما يسوى الله على ذاتكم مؤمنين تأه إنه إلهي واجبيي بشا رمضان إلهي نكو واجبي مسلمين تريني وذا الصومان سيدي اللو واجبيي صوم كنوعا وكلاه ومذي هر اللو واجبيي ودبينتي آيات وحلالها لعلكم تتقون وحا سورة قلقة إنها كارتان درجة سرع أو درجة ذاتك متقين تأه المتقين ودرجة أدوسر يسويان سيدا دراد ديدا فضلك بشهر رمضان أيام كهر مريا بشهر فضلك إلا إذا إنا كشكي يوم مركهرة مركهرة بشهر رمضان وحاول بشي الله سبحانه وتعالى وسود جي قرآن كريم كا سيد الله سبحانه الله سبحانه وتعالى في سورة القدر إلى وحكوشاقي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إلهي وحولي قرآن كوحان سود جنيه هبينك شرفت له وليلة القدر كويان هبينك لو يقانو أي كامل هبينكاسي وحيكون حجرتها طبعا كدنبه dadka muslimiinta ah ee sooman qaarkooda tobankaasi si gooni ah ay u tixgeliyaan waayo rasuulka calayhi wasalaam ayaa wuxuu soo jeediyay in tobankaasi ay ku jirto habeen qiimo badan oo habeenka quraanka la soo dejiyay marka tirooyinka kisiga in laga fiiriyo rasuulku uu tilmaamay calayhi wasalaam marka bishan waxay noqotay bisha ugu khayr badan ee dadka muslimiinta ah la rabo inay isu diyaarshaan lidaalika rasuulka calayhi wasalaam wuxuu tilmaami jiray dadku uu tilmaami jiray asxaabta nabiga calayhi wasalaam bishan ka hor in la soomo bish shacbaan oo kale in la soomo in badan si la isu diyaarsho maalmaha bisha ramadaan iyo bishaasi qiimaha badan waa bisha ramadaan markaan gaarno ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wuxuu noo tilmaamay saddex qaybood inay ka kooban tahay qaybta hore waxaa la yidhaahdaa rasuulka calayhi salaam suu tilmaamay awal raxma bisha qaybteeda hore waa naxariis weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u naxariisanayaa oo ilgaar uu ku fiirinayaa dadka bishaasi soomay markaa ay sooman weeyaan oo markaa sidii la rabay aadaabtii akhlaaqdii bisha ramadaan iyagoo ilaalinaya soomay dadka waxaa la siinayaa naxariis khaasa oo ilaahay xaggiisa ka timid naxariistas markaasi waxay gaaraysaa iyaga shakhsiyan ayay u gaaraysaa ehelkooday gaaraysaa waxay gaaraysaa markaasi dhaqaalahooday gaaraysaa shaqadooday gaaraysaa waa naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo deeqa ilaahay xaggiisa ka timid taa waa qaybtii waa tobanka ugu horeysa weeyaan tobanka labaad qofkii sooma isagana markaa waxay xadiisku wuxuu tilmaamayaa in rasuulku uu tilmaamay awsatuhu maqfira dembi dhaaf inay helayaan waa la cafinayaa dadkaasi oo tobankaasi wixii dembiga qofku hore u sameeyey waa laga cafinayaa xadiiska nabiga calayhi wasalaam wuxuu leeyahay man saama ramadaan macnaa qofkii bisha ramadaan sooma markaa iimaanan waxtisaaban isagoo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala ka filanayo inuu ajir iyo thawaab uu siinayo isagoo markaasi rumaysan in ajarkaa iyo thawaabkaasi uu soo gaarayo qofkii saa u sooma oo istaaga isla markaasi waqaama oo istaaga oo habeenadii markaasi taraawiix u istaaga ama qiyaamuleyl u istaaga qofkii intaa sameeya oo bisha ramadaan xaqeeda uu siiya markaa rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi ufira lahu maa taqadama min dambi dembiyadii hore ka dhacay oo dhan waa laga wada cafinayaa saasuu leeyahay xadiiska nabiga calayhi wasalaam علماء حنا إلا الكبائر كبائر تموي الدنبية واوين والربع قفك إنه كانوا توبة نصوحة توبة لما يستلم ودبوا نقشة أنا نشرين دنبية اسواوين لو أقول نقضة أنت كل الله سبحانه وتعالى وكعفنا يا قفك طبعا كان حسيب برك الجار طبعا كالضبة بش رمضان رسولك حكوت المامي إن يتهي عتق أنا قفك إلا جحريه عذابت الله سبحانه وتعالى إلا جحريه ومركا وبشعروين ويان in qofka uusan ahlu naar noqon doonin haddii uu soomo bisha ramadaan fadliga bisha ramadaan waxaa kamid dadka sooma fadliga bishan ay leedahay waxa weeyaan haddaad soonto waxaad ka gelaysaa jannada albaab khaas ee la yidhaahdo alrayaan baabkaasi rasuulku uu ka sheekeeyey wuxuu yihi cid ka geli doonta ma lahan ilaa dadkii daa'imi jiray inay soomaan bisha ramadaan marka bishaas qofkii sooma jannaduu gelayaa albaab khaasna uu ka gelayaa
albaabkaas waxaa midka ugu dambeeya soomi jiray markuu ka galo waa la xirayaa isaga wuu xirmayaa albaabkaasi malaa'igtaa xiraysa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa siduu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam marka bisha ramadaan fadli fara badan ayay leedahay xikamta bisha ramadaan haddii la taxo maanta oo dhan wuxuu noqonayaa 10 fara badan oo xalqad ama xalqado fara badan aan lagu koobi karin laakiin waxaa wanaagsan in qaar ka mid ah la sheego oo markaa kadib dadka muslimiinta ah cafwan ay ka faa'iidaystaan xikmadahaasi oo markaasi noloshooda ay ku hagaan fursadda markaa bisha ramadaana ay ka faa'iidaystaan marka hore dadka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u abuuray sidoodaba inay noqdaan dad ilaahay awaamirtiisa qaato ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun oo micnaheeda ay tahay jinniga iyo insiga waxaa loo abuuray ilaahay awaamirtiisa inay qaataan alcibaada macnaha culimadu waxay ku fasireen in qofka uu sameeyo amar kasta uu fuliyo ilaahay uu ku raaligelinayo noloshiisa intuu nool yahay wax alla wixii ilaahay uu xarimay oo xaaraan ah marka indhaha laga xarimo ama dhagaha laga xarimo ama carabka ama xubnaha jirka qofka markaasi inuu joojiyo uu iska xarimo weeyaan marka qofka hadduu saa u dhaqmo waa qof cibaado ku jiro uu noqonaya marka ilaahay subxaanahu watacaala marka awaamirta ilaahay uu bixiyo waxaa kamid ah bisha ramadaan ayaa kamid ah marka qofka fawaa'ideeda waxaa kamid qofka wuxuu noqonayaa cabd addoon buu noqonayaa oo kaamil ah oo qaadanaya awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala marka xikmadaha oo bishaan loo sharciyeeyey way fara badan yihiin isla markaa dadka muslimiinta ah waxyaalo fara badan ayaa ku jira xikmado fara badan marka hore taariikh ahaan bishii sanadkii labaad ee hijrada marka asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam ay usoo qaxeen ay yimaadeen almadiina almunawara markaasi ayay ahayd markii la waajibiyey sanadkii labaad ayaa la waajibiyey bisha ramadaan wixii ka horeeyey bisha in la soomo wixii ka horeeyey soonka waajib bisha ramadaan in la soomo waajib mayan ahayn marka markii la waajibiyey dadkii muslimiinta amarka sidaas ay u qaateen oo ilaahay subxaanahu watacaala amarkii sidii ayay u fuliyeen xikmadaha bishaan waxaa kamid ah kow oo laga faa'iidaysanayo iyo masaalixda ku jirta wax ka faa'iidaysanayo malaha in la soomo ilaa bini aadanka mooye bini aadanka ayaa ka faa'iidaysanayo in bisha ramadaan la soomo kow waxaa kamid ah taskiyatu nafs biطaacati illahi subxaanahu watacaala qofka in naftiisa ay ahaato mid daahir ah qofka markuu soomo naftiisa daahir noqonayso waxay daahir ka noqonaysaa ay marka ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nadiifinayo waxaa lagu nadiifinayaa soonka qofka uu soomayo مثلا qofka naftiisa waxay daahir ka noqonaysaa oo laga nadiifinaya wax kasta oo qurun ah ha ahaado akhlaaqiyaadka ama ha ahaado dembiyada iyo wixii lamid ah oo dhan waa laga nadiifinaya marka naftaa daahir noqonayso naftaa taskiyoobayso oo qofki markay naftay nadiif noqoto qalbiga ayaa wuxuu u dhawaanaya ilaahay subxaanahu watacaala waa faa'iido weeyaan qalbiga inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu u dhawaado marka bishaan faa'iidadeeda way fara badan tahay waxaa kamid ah qofka bini aadanka wuxuu ka samaysan yahay laba qaybood ayuu ka samaysan yahay inta badan dadka way la socdaan qayb waa qayb dhooba ah weeyaan oo dhulka bini aadamka laga abuuray kullukum min aadam wa aadam min turaab dhammaantiina aadam ayaa aabbayadiin ah waad ka timaadeen waad ku abtirsanaysaan aadanna asal ahaan ciiddaas dhulkaas ayaa laga abuuray waa qayb weeyaan iyo qaybta labaad waxaa weeyaan qofkii bini aadanka ahaa waxaa lagu afuufay ilaahay subxaana wataala ku afuufay ruux ayuu ku afuufay ruuxdaasi marka xagga sare ka timid ilaahay subxaana wataala xaggiisa ka timid ruuxdaasi iyo dhulkaasi oo laga abuuray oo jirkii bini aadanka ahaa ayaa insaanku ka kooban yahay marka ruuxda qofka qalbigay ku xiran tahay waxayna u tilmaantaa khayrka iyo wanaagga qofka kor bay u qaadaa oo karaamadiisay ka shaqaysaa iyo naftiisay nadiif ahaato marka qofka marka loo fiiriyo haddii dhulka dhankiisa uu u batana wuxuu noqonayaa qof hoose oo xaggii dhulka u batay oo qiimo lahayn marka taana waa nafti ay yidhahdeen culammada marka nafta jirkay la socotaa qalbigana ruuxda ayay la socotaa marka labadaas dagaal ayaa ka socda marka waa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu leeyahay ina nafsa la amaaratun bisuu nafta badanaa waxyaalaha waxay cilaaqa la leedahay waxyaalaha aanan wanaagsanayn oo xagga dhulkay qofka ay u jiidaa qalbiga laakiin oo mu'minka ah waa xagga ilaahay xagga ruuxday xigtaa marka labadaasi si balance loo sameeyo oo macnaha waxaan ula jeedaa si ruuxdii
nafta qaalib kaga noqoto waxaa loo baahan nafti inay soontaa loo baahan yahay marka soonka fawaa'idiis waxaa ka mid ah ruuxda inay ka qaalib noqoto nafti iyo jirkii intiisa kale oo markaa ay ruuxdii waxay kor u qaadaa jirkii qofkii kor u qaadaa xagga ilaahay ku xirtaa marka fawaa'iday ka mid tahay oo qofku ka xasilayo bisha soon fawaa'id waxaa kaloo ka mid ah bisha ramadaan oo qofku ka faa'iidaysanayo jirkii ayaa caafimaad helayo marka sheekaan rabaa halkan inaan ka sheego waqtiyada ka mid ah ayaa nin sheekh caalim ah wuxuu noo sheegay oo culimmada masar ka mid ahaa ayaa wuxuu noo sheegay in nin uu kasoo safray waddanka masar dawo ayuu wuxuu u yimid waddanka ingiriiska dawadaasi markuu u yimid waxaa la marsiyey sida caadada dhakhaatiirta dadka ay marsiiyaan baaris caafimaad baaristii caafimaadka ahaa natiijada kasoo baxday waxay noqotay ninkii in operation lagu sameeyo qalin in lagu sameeyo xagga caloosha ayuu ka xanuunsanaa marka maalintii loo qabtay in la qalo oo operationkii lagu sameeyo oo qaliinkii la rabay in la sameeyo ninkii wuu ka macnaa muusan imaan maalintii muusan xaadirin dhakhtarkii ma imaan marka waa la sugay maalmaa la sugay ma imaan maalmo kalaa la sugay ma imaan marka markii dambe calaa kulli xaal bil markii kasoo wareegatay soo laabtay bishii markuu yimid dhakhtarkii ayuu u yimid wuxuu yidhi garanaysaa ma xusuusataa dhakhtarka wuxuu yidhi wejigaaga waa xasuustaa waxaan u malaynaa inaad ahayd patient oo maaragtay dadkii jiranaa aan daweyn jiray markaasuu yidhi waa isaga weeyaan qofkan marka bil ka hor ayay waxay ahayd inaad operation aad igu samayso oo qalin aad igu samayso laakiin ma aanan soo noqon bil bay igu qaadatay marka waxaan rabaa diyaar waxaan u ahay hadda inaad maaragtay operationkii aad imarsiiso marka dhakhtarka wuxuu yidhi waxaa policy noo ah oo nidaam noo ah qofka noocan oo kala ah oo muddo aanan soo laaban in dib loogu cesho baaristii caafimaad oo xanuunkii hayay intuu gaaray macnaha ilan wixii markii hore xanuun ahay xanuunkii inuu kasii daray iyo meeshiis inuu joogo in la baaro marka wuxuu yidhi qofkii markii marka wuxuu yidhi waxaan ku marsiinayaa maaragtay baaris cilmi oo caafimaad baarista marka la marsiiyey ayaa filmkii sawirkii ayaa dhakhtarka isagoo qolkii ku jiro oo private-ka ah ayaa wuxuu arkay meeshii hore ee calaamaysneed oo filmkii hore iyo isku fiiriyey kii dambe marka kadib wuu soo carar dhakhtarkii wuxuu usoo noqday ninkii oo qolkii ku sugayey qolkii ku sugay uu joogay markaasaa wuxuu yidhi ma dhabbaa hebel inaad adiga tahay qofkii bil ka hor iimi markaasuu waa anigi maxaa dhacay markaasuu yidhi magacaan magacaaga ma yahay haa da-daada ma tahay haa meeshaan ku dhalatay waqtigaa ma dhalatay wixii dhan waa iswaafaqeen markaasuu wili waa ka shakisnaan kuusoo laabtay wuu laabtay labadii film isku fiiriyey midna waa nadiif waa kii dambe wax cudur iyo wax xanuun ah oo uu helay markii hore kuma qorna oo kama muuqdo midna waxaa weeyaan waa kii hore weeyaan sawirka hore wuxuu tusinayaa xanuun inuu hayo xanuunkaasna meesha in laga nadiifiyo u baahan yahay markaa kadib labaad uu soo noqday wuxuu yidhi waxbaa iga qarin inta aada maqneed wax dhakhtar ah ma soo aragtay ma la soo kulantay bishii aad iga maqneed markaasuu yidhi may wax dhakhtaraan soo arkay malaha dhakhtar lama kulmin markaasuu yidhi wax operation ama qaliin ah ma lagugu sameeyey mayuu dhahay wuxuu yidhi meeshii maaragtay meeshuu ku noqday oo uu ka sawiray markii dambe in wax calaamado ku haray oo qaliina inay leeyihiin lin marka qaarkood casriga maanta wuxuu gaaray qofka meesha marka laga qaloo kale in la feereyn karo meesha maaragtay sidii hore oo kale lagu celin karo marka wuxuu yidhi bal dib u fiiray haddii xitaa laga soo feereeyey meeshii marka wuxuu ogaaday meesha inaan lasoo taaban oo aan la qalin ama operation aan lagu sameynin markaasuu yidhi dad adiga isagoo kaashanaya dadka tarjumaanka luqadda carabiga ku hadlaya iyo englishka meeshana waa ingiriiska meesha la joogo markaasa wuxuu yidhi qofkan waxaad weydiisaan haddii dhab ay ka tahay inuu cid kale lasoo kulmay sheekadii aad bay u dheereed calaa kulli xaal waxyaalaha kala dhex maray dhakhtarkii iyo ninkii maaragtay xanuunsanaa markii dambe ayaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inuu ii dhaarto inuu cidna uusan soo arag markii dambe wuxuu yidhi okay ninka tarjumaanka wuxuu waxaad u sheegtaa waxaan la joogay 30 maalmood dhakhtar la yidhahdo ramadaan markaasa wuxuu yidhi waxaan rabaa dhakhtarkaasi oo ramadaan inuu ii sheego jaamacaddu kasoo baxay meeshu wax kasoo bartay iyo meeshuu maaragtay khibradda iyo experiencega cilmiga dhakhtarnimada uu dhakhtarkaasi marka dhakhtar ramadaan wuxuu u qaatay marka dhakhtar oo run ah oo jaamacad kasoo baxay oo dadka daweeyay markaas yidhi waxaad u sheegtaa in bisha ramadaan aan soonnaa 30 maalmood marka laga bilaabo maaragtay subaxdii ilaa maqribkii aanan wax cuni jirin wax cabi jirin markaasaa loo sharxay marka micnaha bisha ramadaan iyo soonka micnihiisii wixii oo dhan markaasi dhakhtarku wuxuu bilaabay sheekada markaa soo gabagabeeyo wuxuu bilaabay
xanuunka uu ku arkay ninkan qof walba oo u yimaado oo xanuunkaasi sheegta wuxuu u qori jiray prescription oo ah 30 maalmood inaad soonto intaysan qoraxda soo bixin inaad bilowdo inaad afurto markay qoraxda dhacdo biyo ma cabi kartid maaragtay xaaska uma tegi kartid maalmaha soonka maaragtay wax ma cuni kartid wax ma xamalan kartid wixii la xarimay oo dhan uu u qoraya dadka marka qofku u qoro dawadaasi oo xanuunkaas hayo wuxuu soo noqonayaa bil kadib isagoo xanuunka ka caafimaaday marka xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi suumuu tasixu sooma waad caafimaadaysaan marka soonka xadiiskaas uu tilmaamay wuxuu tilmaamayaa qofka inuu caafimaaday culamada ku xiriya waa laba caafimaad weeyaan caafimaad xagga jirka oo qofka uu helayo markuu soomo iyo caafimaad xagga ruuxda iyo qalbiga qofka qalbigu nadiif ka noqonaya culamadu waxay leeyihiin qofka carabkiisa hadduu ka ilaaliyo xumaanta dhagaha uu ka ilaaliyo inuu xumaan dhagaysto indhaha uu ka ilaaliyo inuu xumaan fiiriyo xubnaha kale uu ka ilaaliyo inuu xumaan ay sameeyaan waxaa nadiif noqonaya qalbiga markuu nadiif noqdo ruuxda qofka nadiif noqonayso marka ruuxdaasi waxay cilaaqa la yeelanaysaa xagga sare malaa'igtay cilaaqa la sameynaysaa marka qofka wuxuu la mid noqonayaa uu gaarayaa darajatul malaa'ika darajada malaa'igta oo kale waayo malaa'igta wax ma cunto wax ma cabto qofka soomanna sidaas oo kale uu noqonaya maalinta wax ma cuno wax ma cabo markaasaa waxaa la yidhahda marka yowmuhu macnaha maalintiisii ama maalinteedii gabadha hadday sooman tahay oo kale waxay la mid noqonaya sida malaa'igta oo kale marka cilaaqa khaas ay yeelanayaan markaas waxaad arkaysaa qofka waxaa la yidhi lisaa'imu farxataan xadiiska saas uu leeyahay qofka sooman laba farxadood ayuu leeyahay farxad ah markuu afurayo iyo farxad ah markuu aakhiro ilaahay uu la kulmayo oo albaabka khaaska ah ee arrayaan uu ka galayo farxadda markuu afurayo waxaa weeyaan hadduu qofkaasi markuu afurayo wuxuu rabo oo khayra ilaahay u weydiisto waa la siinayaa nin imaam ayaa wuxuu yidhi ducadaasi 3 si midkood ayaa loo aqbalayaa imaa in markiiba la siiyo wuxuu weydiistay waa kow ama dhibaato iyo musiibo kusoo socotay in lagaga hortago ducadii uu weydiistay ama in dib loogu dhigo ducadii oo aakhiro la siiyo oo aakhiro inuu u baahan yahay ayaa laga yaabaa marka ducadiisi dabcan waa la aqbalayaa qofka markuu uu saa'im uu yahay marka fadliga bisha ramadaan waxaa ka mid ah oo culimmada ay tilmaameen oo in aad iyo aad dadka ay ugu intibaahaan loo baahan yahay waa junna ayuu rasuulku tilmaamay as-siyaamu junna ayuu dhahay soonka waa gaashaan qofka wuxuu ka ilaalinayaa wax kasta oo gaari lahaa marka waa laba nooc weeyaan gaashaan wuxuu yahay qofka inuu hadduu uu ku dhici lahaa macsi oo kale ama xumaan uu ku dhici lahaa soonkaa ka celinaya waa protection wuu ilaalinayaa qofkii wuxuu leeyahay soonkaagii yuusan dhaawacmin ayuu qofka dhahaya marka xumaan ma sameynayo xumaan kuma hadlayo wuu is ilaalinaya marka waa gaashaan oo kale oo rasuulku uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wuxuu gaashaan u yahay qofkii ayuu wuxuu ka ilaalinayaa dembiyo inuu galo adduunyada intuu joogo taa waxaa weeyaan waa mid kow qofka markuu soomo gaashaan wuxuu ka yahay aakhiro markuu tago cadaabta aakhiro uu geli lahaa iyo naarta waxaa gaashaan noqonaya oo teed noqonaya qofka ka ilaalinaya soonkiyaa imaanaya marka taa waa gaashaan kale intaan la gaarin aakhirada axaadiistu waxay tilmaamayaan qofka qabriga marka la gasho oo cadaabul qabri u imaan lahaa ama dab ha ahaado ilaa qabriga laftiisa dab ayaa ka shidma waxaa jirta sheeko oo xaqiiqo ah oo wadamada muslimiinta maaragtay laga soo wariyey nin dhalinyaro ah ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii aasay walaashiisii markuu aasayay wuu mashquulsanaa marka kiish ayaa halkaa ku jiray oo masaariifta raashiinkii wixii lagu soo gadan lahaa oo cidda ayaa kiishkaa ku dhex jiray marka intuu mashquulsanaa wuu murugeysnaa marka iilka gabadha la gelinaya isaga ahaa ninka walaashiisa iilka godka xagga hoose isagaa gashay marka kiishka ayaa meesha ku dhacay marka wuu mashquulsanaa wuu soo baxay ciiddii lagu aasay waa lasoo tegay guriguu yimid reerkii u yimid markuu u yimid ayaa markuu cabaar uu miirsaday ayaa wuxuu soo xasuustay kiishkii markuusuu hooyo u sheegay hooyo wuxuu yihi kiishkii waxaan u malaynayaa iilka dhinaciisa inuu ku dhacay waana habeen ayay noqotay markaas hooyada waxay tiri waa raashiinka bishii oo dhan hooyo orod carar dadna kaasho israaca godka hala qodo kiishka noo soo saaro oo masaariiftii iyo guriga wuxuu u baahnaa oo dhan bishii oo dhan waa maarata lacagteedii markaasi wuu cararay marka badiil iyo waxay qaadan kareen ay qaateen qabrigay tageen qabrigii marka way qodeen qabrigii markii iilku u dhawaaday ayaa wuxuu arkay qabrigii oo holacayo oo holac ka shidan waa qabrigii gudihiisa markaasi wuu soo cararay marka dadkii la joogin way soo carareen markay soo carareen marka bahalo badani way ku arkeen meesha markay soo carareen hooyo u yimid hooyadiis uu qabsaday marka uu ku dhegay gacantuu qabtay hooyo ii sheeg
gabadha walaasheeda waxay galabsatay iyo waxay samaysay waxbaan soo arkay markaa kadib hooyadii waxay tiri wax aan ogahay walaasha oo dembi ah oo aan ku arkay malahan aad bay akhlaaqdeedii iyo dadaalkeedii iyo fiicnaa laakiin cilad yar baan ku arkay oo ah salaadaha qaarkooda ayay ka gaabin jirtay ma ahan salaadaha inaysan tukan jirin salaadaha qaarkooda mararka qaarkooda salaada cishay ka seexan jirtay mararka qaarkooda subaxda ma soo toosi jirin salaadaha qaarkoodna mararka qaarkooda way qaleyn jirtay marka qalooyinkaas waxaan ahayn aan ku ogahay ma lahan saa ula socotaan salaadaha maaragtay oo la qaleeyo dembiyadooda iyo oo qofka kas u qaleeyo isagoo og u ka tegayo dhibaatooyinkeeda ayay daliil u tahay qofka cadaabul qabri inuu la kulmayo marka xadiiska oo ah asiyaamu junna culamada waxay ku fasireen xadiiskaas iyo xadiis kale iyagoo ku lamaanayo in qofka markii qabriga la gasho oo soonka uu imaanayo soonka marka wuxuu hor istaagayaa cadaabtii ayuu hor istaagayaa qabriga gudaheeda cadaabtii soonka wuu hadlayaa wuxuu leeyahay ma taaban kartaan wuu soomi jiray bisha ramadaan waxba kama tegin bisha ramadaan wuu dhamaystiri jiray sidii xaqa ahaa oo maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u tilmaamay wuu soomi jiray marka faa'iidada bisha ramadaan iyo fadliga bisha soom way fara badan tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa hal faa'iido oo kale dadkoo dhanna faa'iidadan way taabanaysaa laakiin si qaasa dhalinyarada u taabanaysaa saan ula socono rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis uu dhahay ayaa jira yaa macshar ashabaab man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj isagoo tilmaam la hadlaya dhalinyaradu si qaas wuxuu dhalinyaro yahay qofkii kari kara ha guursaduu yiri man istataaca minkum albaa waxaa loola jeedaa markaasi meherka qofkii meher culamada qaar waxay leeyihin meher iyo nolosha iyo masaariifta qofkii bixin kara ha guursado si dhaqso ah dhalinyarada lala hadlay markaas xadiisku wuxuu leeyahay waman lam yastatic qofkan kari kari markaa inuu guursado macnaha facalayhi waxaa dushiisa ahaaday markaasi assoom inuu soomo weeyaan oo kama qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam ama sida nabigu uu yidhi oo kale marka bisha ramadaan qofka markuu soomo fawaa'ideed waxaa ka mid ah فإن حديث كاس وحوليه هاي وهذا عن سؤال آخرين فإن له وجاء معناها شهودي ويتجابيسا قفكي درينكي أو إنه وحوبة أنا أقول دريمي لها أي درين كاس بابا أيو أما أدبو يرانا يا مركا فوائد بشا صوم وحاكم إذا قفك ودرينكي سي شهودة أحد وآدي يرانا يسو وقفك مركا سننكي عبادة يدلالك خيرك وبضنانا يو marka kasru shahawaat waa faa'iido weeyaan qofka inuu controli karo naftiisa qofka markuu wax cuno ama uu dhargo nafta ma controli karo laakiin qofka markuu sooman yahay naftiisa uu controli karaa marka qofka wuxuu awood u lahaanayaa in bisha ramadaan naftiisa uu controlo ugu dambeyntii ramadaan culimadu waxay ku tilmaameen inay ramadaan waa madraso weeyaan waa school weeyaan oo qofka markuu galo oo graduation uu sameynayo wuxuu qalin jibinayaa maalinta ciida farxadda ciida wax malaa'igta markay soo baxdo dadka soomay ayaa waxay leeyihiin bishaaraysta waad guulaysateen waad liibaanteen dambiyadiina waa la dhaafay naarta waa laydinka xoreeyey janno ayaad ehel u noqoteen marka qofka markaasi shaarkiisii cadaa inuu qasa mooye oo isaga uu wasaqeeyo mooye wuu nadiif weeyaan lidaalika waxaa la yidhaha dadka ahlu muslimiinta ah markay dhintaan bisha ramadaan dhexdeeda ahlu janno weeyaan fawaa'id waxaa ka mid ah oo aan kusoo khatimayo oo muhiimka ah intaanan hilmaamin yusafad waa la xirxirayaa maaragtay xabsiyo ayaa lagu gurayaa shayaadiinta waaweyn shayaadiinta o dhan in la xirxiraya maaha laakiin kuwa waaweyn xabsiyo ayaa lagu gurayaa ilaahay baa xirxiraya laakiin shayaadiinta yaryar baa lasoo deynaya marka kuwa yaryar iyaga waa kuwa markaasi qofka maaragtay kan daciifka ka adkaadan ayaa layidhi kan daciifka ah oo iimaankiisu dhulka yaallo ayaa waxay u diidaan inuu soomo markaasi xadalka dad badan oo aanan soonayn iyagoo markaasi wax cudurdaar ayaan haysan waa qaybta labaad oo darsigeena ka hadli doono marka darsigeena qaybtan koowaad waxaa weeyaan fadlu maaragtay shahru ramadaan bisha ramadaan fadliga ay leedahay iyo in la soomo fawaa'ida faraha badan qofka uu ka helayo marka fawaa'idaas waxaa ka mid ah bisha soon waxaad chance u helaysaa wax badan inaad samayso uu kaa hor istaagi lahaa shayaadiinta waaweyn ee xooga badan oo aadan fursad u heli karin lidaalika culamadu waxay tilmaameen qofka bisha soon qofka shay wanaagsan sameeya hal shay wanaagsan waxaa la laabalaabayaa ilaa 70 iyo ka badan laalaab ayaa loo sameynayaa axaadiistu waxay tilmaameen qofka sunno dukado sunnada waxay la ajar noqonaysaa sida fardiga oo kale bisha soon haddaad bixiso zakada sadaqa haddaad bixiso zakadoo kale ayay u dhowaanaysaa ajarkeeda
zakada la bixiyo way ka fadli badan tahay zakada la bixiyo bisha soon maaragtay khaarijkeeda ana maalmaha kale ama bilaha kale bisha soon qofkii dembi gala dembiyadiisu waa ka waaweyn yihiin sida loola xisaabtama loo ciqaabayo qofka bisha soon banaankeeda dembi gala marka bishaasi waayo qof laga xirxiray shayaadiintii waaweyn oo kuwa yaryar kaliya dibadda joogaan haddana ilaahay awood u siiyey inuu kontrolo naftiisa iyo shayaadiinta kale haddana ku dhiirinayo inuu dembi galo qofkaasi wuxuu mutaysanayaa ciqaab adag